koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa wuxuu yiri ridooxaan ribiiraysaaney karoonto reejay qabta karoonto reejay qabta cabdullow masmiga ku qanina aad waxay taa mayada waa ku aragtay cijaysatay cabdullow mahmaayada waad seegtay neef gowracanigeeda kama waabtay ahayd naw war mahmaada waa ku dheeseene waxa weeyaan wan weyni ilaa la gowraco indhihiisu cirka ma arkaan war mahmaadaniinku ku dheelen haan afyaguuyon haan kale aragaasu hunfug matiraaso dheere badaadan isaago wadnahaantaanan ku nacdarigana hunfug aad ku soo darta war neef gowracangeeda kama wataan ku soo xasuustay xalay meelo badan baa cirka laskaga soo dhacay cajiib shabeellaha hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa shabaab cirka dig looga soo yiri horta waxay shabaab ma yihiin cirka ha looga soo dhaca maahine dhulkuna ha ku fugto tii ugu darnayd saldhiga ay ku lahaayeen mubaarak ayay ka dhacday markii cirka looga soo dhacay ayaa haddana waxaa ku sii qarxay hubkoodii iyo goorboqarxyo usii diyaarsanay abkayfaqa buraalaa ku soo degaye ilmo yaryaroo meesha ay ku tababarayeen wixii ay diyaarsadeena sii martay waleedahaya shabaabkii 100 sano ka hor jiray ee sayid maxamed cabdilla xasan ayaa diyaarada weerareen ingiriisku lahaa wuu gabyey marka wuxuu yidhi coomaadi duulaayabay cadan ka keeneen cirkii iyo dhulkiibaa isqabsaday cararaqdoodii aduguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaamu yidhi maalintaasaana u dambayso waa laga nasto waa ka iimay u qaxay walaadha shabaabka aad sheegayso sayidku midaan niman naftooda rabay ahaayeene kuwaanu naftooda ma rabaan 100 sano ka hor gabay ahaan aan noo sheegine 100 sano kadib shabaab waxay ku gabyeen dadka yaga dilkiisii haddii cadowgu noo diiday duqaymihii shisheeyaha haddii nala ku soo daayey afka duubanna iyo indhaha dah ku xirannaaba adiguba dan baad leedahay dareer maxaa dhaama aryaadaha waxaad maqli jira katiitow moonya calow riglow korisuuqaad dhulkiisii dhey haddaad jaabtaana iimaw abeesaa fuurhaa ku gaashe yur weligay ma maqal maanta ka hor warninkaan waxaa ka dhex hadlaya majin baa bini'aadan sidan uma hadlee warni owlig wuxuu ku yidhi adigaa fahmane ewalxaad soo jerihaysay jinni guuraaya ku joogse ewalxaad soo jerihaysay jinni guuraaya ku joogse ayay jirtay xaraaray dhihi jirtay yaa macaan ka rabahe war ninku haddaad jabtay iima uu ku yidhi marka u tag haddaad soo karta adoo jaban war caamirba waa saleelle anahaa tarcaymadii buu ahaa kooka daran gobi widay anigu jin hadlay ma waraqaane waxaan idin lahaa nuudiga iyo liqayaasha malabsiga ku fogaadee cidna aanu miciinine calooshooda ka miista haddaan miiska dulkeenno taas waa mudankoodii ololadiio eelan aragdi olole wuwiinaa warnimada wajinni iyo jacayl riwaayad la soo dhaafay ahayd kan cusub dhegaysta haa isi gabar jacayl hayo ayaa sabtiga waxay facebook soo qortay haddaan jirayaa jacaylo haddaan jawi caashiq galay axaddiina waxay tidhi xasilay goortaan ku helay isniintana waxay tidhi ku bartay oo kaa ilbaxay durdaba talaadadiyaa ka daranoo waxay tidhi talaadadiyaa ka daranoo waxay tidhi tagtay ayaa ku tabay anaa jimcuhu jawaabaya jacaylkana joojiyaan leehay war waxaas ma ahane jacaylkii u daraa maanta reediyo kulmiga ka dhegaysta gabar iyo wiilaa warka akhrinayay wiilkii wuxuu yidhi abbaaye macaan warkii ma dhammaaday gabadhiina waxay ugu jawaabtay abbowe macaane ma dhammaane warkii dibaddaa dhiman war meeshaas war ma aaline jacayla lagu jilaaya dhiidhiin ah war jaceelka gabal laab ee odniska sheegay kan hawidini marseegnu may haay casriga soo baxay waa arro aryaadaha madaxweynaha hirshabeelle master waare waagi la doorta waxau baarlamaanka ka codsaday inuu wasiirada bannaanka ka keeno oo uusan hal xildhibaan wasiirka dhigaynin waana ka yeeleen muggaas baarlamaanku muggaanowse tii ugu dareed dhigay wasiiradii ku-xigeenadoori wasiiru dawlayaasha kurtoor xildhibaanadiyow ka dhigay war xeeladaas ma taqaanid waa xeelad mooshinka looga hortago furan iyo gaashaana la yidhaahdaa dawladda weynuuna ka barta
yaa waraya gaashaan ununkaa ku shiri jirnaa dawladda weyn naxaa u geeya abdina uusan gashiraasan la inoo iska difaac oo la bardi wal mooshiidii war dawladda nabad iyo nolol la yiraahay goorma war in gaashaan loo bixiyay warwarna haysaana Puntland wafdi tira badan baa ku qulqulaya Cabdiramaan Cabdi Shakuur ba markii ugu horeysa baxay oo isla ayaan lagu reebin inta laga tashado tigidkuna waa qaaliyoobaa la yiri lagu baxayo $400 buu sii maraya marka dadka halkaas bay u qulqulayaan diyaaraduna lacag aqli ka fooqa bay ka sameynayaan aryaa anay iga qaadi lahaayeen waxa hore loo yiri suusmeelo yaalo ka beegma hore caleema saarka madaxweyne Dani waa siyaasadaysan yahay sida loo kala ordayaan ka arkaa waradan Soomaaliland nahay haddaan ka qayb galo caleema saarka Puntland eetraaf ku helayna warnamiyo ma siin lahaa caleema saarkii madaxweyne lafta garan koonfur galbeed ka dhiyay sidoo maran garooran caleema saarka madaxweyne Dani oo Puntland ka dhiyo doona wala sida muhaafid yoonay mu'arad lin garooraw ma timir lafa ka jirto war madaxweyne Soomaali State Mustafa Akshar isaga iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya khilaaf u dhaxeeya la yiri isagoo xariisan buu adis ka soo laabtay baa la yiri saddex wasiirna markuu yimid ilkii uu ka qaaday marka waxaan u maleynayaa federaalka Itoobiya ama keeno kala noqdaa war madaxda Itoobiya iyo kuwana xiriir weyn baa ka dhaxeeyo in la isku daartay baa laga yaabaa hore la yiri daqranta ah waa la isku daartaa aryaadaha Kenya waxay tiri hubkina la ku weeraray Muqdisho laga soo dhiibay la taliyaha madaxweynuhuna wuxuu yiri shabaab wax uma dhiibne Kenya warkay sheegayso iska fiiriso warnaa la taliyaha madaxweynuhu warka muu iska hubsha Muqdisho waa la wada joogaa Kenyase Soomaaliya oo naqbatay inta hubku inay saarantaa soo mooga waa maxay hubka laga soo dhibay sheegaysa haki ya Mungu way kana waasini bana maana u baana ileeya aryaa waxa tiriba lagu yiri aryaa aniga waa yaabanahay niman daacish oo Soomaali u soo socda Mareykanka lagu qabtaa la yiri war Abu Faarax leena wuxuu yiri jahaaz ruuxa naga doonayo Yurub ka soo duulay dambu leeyahay masaagaal dila way aryaa Faarax ma hayna waadan maqal sida Faarax Suuriye indhaha kabad ma saarteen kartatooyo waa ridalahay kiciisa baaruud war shirkad magaalada Cawda qashin ka qaada ayaa shil jiraad magaalada ku dhaxqabatay waxay tiri cidii qashinkeeda cid kale ku darta tilaaban ka qaadayna marka qashin laga qoys la isku dari karay waayaab wiligay qashin laga ganacsaayo waa ii kowkanu anna waa ii kow qashin ka ilaali ebidkay war qashinka qoriyaad ku ilaali jirtay lama qaadi kara dhigi jirtay dadka beenta ka daay arwar ma haysiina safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya wuxuu yiri safiirkii aniga iga horeeyay loo magacaabay ergaga dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Somaliland war Soomaaliya iyo Somaliland ayaga Soomaaliya ma wada hadli waayeen goormay af Turkiga barteen bereesku sidaas ma aha Soomaaliya Soomaali baa leeyahay naga tagsin xallugu qasay cirka looga soo dhacaaba lagu leeyahay war yaa qaramada midooba kismahay ma teey kartaa liin aryaa qashamada midooba waa la dhaqaajiye yaa dhihi kara war xitaa midooba Yurub ma bixi karaan baa la yiri tijaabtii kara war yaa